Somali isku dhafan jareer iyo jilaac waa lagu jiraa mudane madaxweyne halkan kuma soo koobi karo dhibaatada uu soo maray ciidankan oo muddo dheer xareesnaa waxaa soo tababaray wadamo kala duwan sida Kenya, Ethiopia waana ciidamo ku soo firfircoon howlgallada ay ka hortagayaan cadowga ummadooda waxay hadda diyaar u yihiin in la qalabeeyo si ay uga gutaan waajibaadkooda qaran si wax tar leh howlaha ay u fuliyaan ciidanka ilaalinta nabadgelyada ee midowga Afrika ay fuliyaan inay iyagu qaataan kaalintaas oo ay la wareegaan ayay diyaar u yihiin ciidanka mudane madaxweyne askariga aan ku amaanayno mas'uuliyadda ilaalinta shacabka بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على ظن الدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وحنا جمهورية فدرالك الصومالية هي وفتك لا صعود كبدي تليا حوجة وزير كلمات الله وزير بدل حلواننا يسرين ترى انت دور الدولة كيشوف الآن سراكيش صحافة كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعفر حد وينية إن مر اللبات أنا مدحوين اللبات كسون وينية ميكروفون كان oo lagaga hadlayo halkan jaamacadda Kismaayo iyo ciidankii isku dhafka ahaa ee ugu horeeyay oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda gaashaandhigga mudane madaxweyne sida uu taliyaha xoogga iyo taliyaha qaybta 43 sida uu ahaa heshiiskii in la qaybaha loo dhisayay ay ka hadleen ciidankan waa ciidan Soomaaliyeed oo isku dhaf ah waxaan u malaynayaa maanta diyaar garowgooda iyo ciidanimadooda hortaada ilaa indhiinay ka muuqataa ciidankani cadow badan baa ku xeeran marka Jubbaland la yidhaahdo waa maanta meelaha ugu culus Soomaaliya ee madaxa maska madaxiisu uu yaallo shabaab madaxoodu deegaankan ugu badan yahay masna madaxa laga dilaa raggii ka dili lahaana waa raggan madaxweyne iyagina waxaad moodaa waralanimadu inay ku dheeraatay 2005 ilaa hadda inay sacaboolay noqdaan oo kabaha iyo direesku wax ku kor dhamaadaan oo ayna hawl gelin oo maalmo magac loo bixiyo lama naxa iyo idilabaydaa iyo yani intaasoo magac ay maanta ku qaadaan oo maanta aan la odhanayn ciidankii SNA baa intay howlgal u baxeen meel tegay waa wax aada iyo aada looga xumaado malihi anigu dawladdu way kharash laadahay dawladdu waxyaalo badan bay wax ku bixisaa islaamba waxaa laga sheegay ninka booladaala gabadhayda kama dhali waayo dawladda federaalka ciidankaas way hubayn weyday oo waxbay u weyday aniga igama dhaadhacayso ma aqbalayno ma aha wax suurtagala annagoon dhaqaalahaynin oo waxba gacanteeda aynu ku jirin ciidamaan tababaray hubkoodii baan soo jaqabsanay maanta waxaan u hubayn laanahay kuwa tababarka ku jireed u tegi doonta ee kale kuwaanaan la hubayni way nagu adag tahay in la hubeeyo oo maalin walba ciidan kale hortooda lagu dhiso mudane madaxweyne waxaan kaa rabnaa gaadiidkii loo keenay wakaas hal baabuur Jubbaland kaba inay isticmaalin maanta dawladda federaalka waxaan uga joogaa taliya xooguna waa joogaa madaxweynehena ugu joogaa war ciidankaas muddadaasaan wax u keenaynaa waxaan isku soo gurudnaba maanta waan u diyaar garoobaynaa ciidanka waa la hubaynayaa iyo maye intaad kale celcelisaan Jubbaland dib ha ugu noqdeenoo idinku u tashada labadaa jawaabood baan ka sugaya dawladda federaalka بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينه guddiga ila socda wafdiga ila socda
oo golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal iyo xildhibaanada Jubbaland iyo wasiiradooda guud ahaan dadweynaha halkan jooga iyo ciidamada qalabka sida waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo sharafta badan aad aniga iyo wafdigayga aad noo soo dhaweyseen wasiiradeeda iyo xildhibaanada sharafta leh aad noo soo dhaweyseen iyo sida wanaagsan ee reer Jubbaland oo gacmaha furan oo qalbiga furan oo waaltinimada leh aad noo soo dhaweyseen oo farxadda leh waan kaga mahadcelinaynaa. waxaan kaloo aan kaaga mahadcelinayaa madaxweyne runtii hawsha baahsan oo wanaagsan oo aad magaaladan ka qabatay oo ugu horeyso nabadda inaad nabadaysay oo warbixinadan helayo ay tahay magaaladan in la socon karo qof walba oo mas'uul ah oo meesha roo mari karo mas'uuliyiintu inay xafiisyadooda ku yaalaan in magaalada degan yihiin iyagoo la waardiyay runtii taas waxaan oran karaa waa horumar aan doonayno inaan higsano annagu haddaan nahay dowladdii federaalka haddaan shacabka reer Kismaayo iyo reer Puntland iyo Jubbaland raalli ahow hilmaan hadal kuma jiro iyo mas'uuliyiintaba waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan oo ay gacan siiyaan madaxweynaha Axmed Madoobe sida wanaagsan uu hawsha hufan uu maxaan ku raahdaa maamul goboleedka ama dowlad goboleedka ugu hayo in gacan aan wada siino annagana wixii karaan keenaa haddaan nahay dowladdii federaalka ka karmayna insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. halkan maanta waxaan ugu imid booqasho aan iraahdo salaan iyo inaan helo warbixinta magaaladan ka jirta iyo gaar ahaan ciidamadan qalabka sida oo hadda kulli warbixintooda aan hayo oo ay tahay inay dhamaysteen tababarkoodii muddo 1 sano iyo bar ah ayna yihiin ciidamo isku dhafan oo u diyaarsan inay dalkooda difaacaan cadowgooda ka difaacaan runtiina aan ognahay inay jirto duruufo adag oo meesha yaalla oo xaqiiqo ah oo aan doonayno inaan daboolno hadduu Ilaahay yiraahdo laakiin haddee hawshu ma wada xuma waxaan leeyahay mushaharadiina waa hesheen 4 bilood iyo 5 bilood haddii ugu dambeysay iyo wixii aad u baahneedeen hadda waxa weeye inaad howl gashaan oo aad heshaan qalabkii iyo agabkii aad ku howlgal lahaydeen si aan uga hortagno cadowga horarka ay ummadda Soomaaliyeed u diiday nabadda iyo horumarka u diiday waxaan aaminsanahay inaad diyaar u tihiin soo maaha diyaar ma tihiin annagu haddaan nahay dowladdii federaalka insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxa idinka haray ama waxa idin dhiman waa soo dhamaystirinaa insha Allah inuu Ilaahay hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan aaminsanahay markaad heshaan wixii aad u baahneedeen qalabkiinii iyo wixii idinku tababaray waxaan aaminsanahay inaad howlgalaysaan cadowga Soomaaliyeed oo horumarka u diidayna inaad ka hortagaysaan aad u diyaarsan tihiin soo ma diyaarsanidin ma u diyaarsan tihiin annaguna waxaan ugu ballanaa inaan idinkeena qalabkii iyo hubkii aad u baahneedeen insha Allah Soomaaliya ha noolaato. Soomaali isku dhafan
مدن مدحوينه هل وفتك لا صعود كم تليا حوجة وزير كلمة وجاه وسيلة بدل حلوانه يسرين ترى أنت دور الدولة كيشوف الآن سراكيش صحافة كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعفر حد وينيا إن مر اللبات أنا مدحوين اللبات كسر وين الميكروفون كان أو لقيها الله هل كان جامعة إسماعيل يعيدن كي isku dhafka ahaa ee ugu horeeyay oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda gaashaandhigga mudane madaxweyne sida uu taliyaha xoogga iyo taliyaha qaybta afartan iyo saddexaad sida uu ahaa heshiiskii in la qaybaha loo dhiseeyey ay ka hadleen ciidankan waa ciidan soomaaliyeed oo isku dhaf ah waxaan u malaynayaa maanta diyaar garowgooda iyo ciidannimadooda hortaada ilaa indhiinay ka muuqataa ciidankani cadow badan baa ku xeeran marka Jubbaland la yidhaahdo waa maanta meelaha ugu culus Soomaaliya ee madaxa maska madaxiisu uu yaallo shabaab madaxoodu deegaankan ugu badan yahay masna madaxa laga dilaa raggii ka dili lahaana waa raggan madaxweyne iyagiina waxaad moodaa wararnimadu inay ku dheeraatay 2005 ilaa hadda inay sacaboolay noqdaan oo kabaha iyo direeska wax ku kor dhamaadaan oo ayna hawl gelin oo maalin magac loo bixiyo lama naxa iyo idil abaydaa iyo yacni intaasoo magac ay maanta ku qaadaan oo maanta aan la odhanayn ciidankii SNA baa intay howlgal u baxeen meel tegey waa wax aada iyo aada looga xumaado melihi anigu dawladdu way kharash laadahay dawladdu waxyaalo badan bay wax ku bixisaa islaamba waxaa laga sheegay ninka booladaala gabadhayda kama dhali waayo dawladda federaalka ciidankaas way hubay u weyday oo waxbay u weyday aniga igama dhaadhacayso ma aqbalayno ma aha wax suurtagala annagoon dhaqaalahaynin oo waxba gacanteeda aynu ku jirin ciidamaan tababaray hubkoodii baan soo jaqabsanay maanta waxaan u hubayn laanahay kuwa tababarka ku jireed u tegi doonteen kale kuwaana la hubayni way nagu adag tahay in la hubeeyo oo maalin walba ciidan kale hortooda lagu dhiso mudane madaxweyne waxaan kaa rabnaa gaadiidkii loo keenay wakaas hal baabuur Jubbaland kaba inay isticmaalin maanta dawladda federaalka waxaan uga joogaa taliya xoogguna waa joogaa madaxweynehena ugu joogaa war ciidankaas muddadaasaan wax u keenaynaa waxaan isku soo guridnaba maanta waan u diyaar garoobaynaa ciidanka waa la hubaynayaa iyo maye intaad kale celcelisaan Jubbaland dib ha ugu noqdeen oo idinku u tashada labadaa jawaabood baan ka sugaya dawladda federaalka بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينه guddiga ila socda wafdiga ila socda oo golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal iyo xildhibaanada Jubbaland iyo wasiiradooda guud ahaan dadweynaha halkan jooga iyo ciidamada qalabka sida waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo sharafta badan aad aniga iyo wafdigayga aad noo soo dhaweyseen wasiiradeeda iyo xildhibaanada sharafta leh aad noo soo dhaweyseen iyo sida wanaagsan ee reer Jubbaland oo gacmaha furan oo qalbiga furan oo waaltinimada leh aad noo soo dhaweyseen oo farxadda leh waan kaaga mahadcelinaynaa waxaan kaloo aan kaaga mahadcelinayaa madaxweyne runtii hawsha baahsan oo wanaagsan oo aad magaaladan ka qabatay oo ugu horeyso nabadda inaad nabadaysay oo warbixinadan helayo ay tahay magaaladan in la socon karo qof walba oo mas'uul ah oo meesha roo mari karo mas'uuliyiintu inay xafiisyadooda ku yaalaan in magaalada degan yihiin iyagoo la waardiyeen runtii taas waxaan oran karaa waa horumar aan doonayno inaan higsano
annagu haddaan nahay dowladdii federaalka haddaan shacabka reer Kismaayo iyo reer Puntland iyo Jubbaland raalli ahow hilmaan hadal kuma jiro iyo mas-uuliyiintaba waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan oo ay gacan siiyaan madaxweynaha Axmed Madoobe sida wanaagsan uu hawsha hufan uu maxaan ku raahdaa maamul goboleedka ama dowlad goboleedkan ugu hayo in gacan aan wada siino annagana wixii karaan keennaa haddaan nahay dowladdii federaalka ka hakarmayna insha allah hadduu ilaah yidhaaho halkan maanta waxaan u imid booqasho aan iraahdo salaan iyo inaan helo warbixinta magaaladan ka jirta iyo gaar ahaan ciidamadan qalabka sida oo hadda kulley warbixintoodaan hayo oo ay tahay inay dhamaysteen tababarkoodii muddo 1 sano iyo bar ah ayna yihiin ciidamo isku dhafan oo u diyaarsan inay dalkooda difaacaan cadowgooda ka difaacaan runtiina aan ognahay inay jirto duruufo adag oo meesha yaalla oo xaqiiqo ah oo aan doonayno inaan daboolno hadduu ilaah yidhaahdo laakiin haddee hawshu ma wada xuma waxaan leeyahay mushaharadiina waa hesheen 4 bilood iyo 5 bilood haddii ugu dambaysay iyo wixii aad u baahnaydeen hadda waxa weeye inaad howl gashaan oo aad heshaan qalabkii iyo agabkii aad ku howlgal lahaydeen si aan uga hortagno cadowga horarka ah ummadda Soomaaliyeed u diiday nabadda iyo horumarka u diiday waxaan aaminsanahay inaad diyaar u tihiin soo maaha diyaar ma u tihiin annagu haddaan nahay dowladdii federaalka insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waxa idinka haray ama waxa idin dhiman waa soo dhammaystirinahay insha allah inuu ilaahay hadduu ilaah yidhaahdo waxaan aaminsanahay markaad heshaan wixii aad u baahnaydeen qalabkiinnii iyo wixii lidinku tababaray waxaan aaminsanahay inaad howlgalaysaan cadowga Soomaaliyeed oo horumarku diidayna inaad ka hortagaysaan aad u diyaarsan tihiin soo ma diyaarsanidin ma u diyaarsan tihiin annaguna waxaan ugu ballanay inaan idin keena qalabkii iyo hubkii aad u baahnaydeen insha allah Soomaaliya ha noolaato Soomaali isku dhafan dareer iyo jilaac waa lagu jiraa mudane madaxweyne halkan kuma soo koobi karo dhibaatada uu soo maray ciidankan oo muddo dheer بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على امر الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وحنا جمهورية فدرالك Soomaaliya iyo waftiga la socdo ay ka mid yihiin taliyaha xoogga wasiirka arrimaha gudaha wasiirro badan xildhibaano iyo senatarro inta dowlad goboleedka Jubbaland saraakiisha saxaafadda kulligood salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaa farxad weyniya in mar labaad aan madaxweyne labaad ku soo dhaweynayo mikrofoonkan oo lagaga hadlayo halkan jaamacadda Kismaayo
ciidankii isku dhafka ahaa ee ugu horreeyey oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda gaashaandhigga. mudane madaxweyne, sida uu taliyaha xoogga iyo taliyaha qaybta 43aad sida uu ahaa heshiiskii in la qaybaha loo dhiseeyey ay ka hadleen, ciidankan waa ciidan Soomaaliyeed oo isku dhaf ah. waxaan u malaynayaa maanta diyaargarowgooda iyo ciidannimadooda hortaada indhiinay ka muuqataa. ciidankani cadow badan baa ku xeeran. marka Jubbaland la yidhaahdo waa maanta meelaha ugu culus Soomaaliya ee madaxa maska madaxiisu uu yaallo. shabaab madaxoodu deegaankan ugu badan yahay, masna madaxa laga dilaa. raggii ka dili lahaana waa raggan. madaxweyne, iyagiina waxaad moodaa waralanimadu inay ku dheeraatay 2005 ilaa hadda inay sacaboonay noqdaan oo kabaha iyo direysku ay ku kor dhamaadaan oo ayna hawl gelin oo maalinba magac loo bixiyo lamanaxa iyo idilabaydaa iyo yacni intaasoo magac ay maanta ku qaadaan oo maanta aan la odhanayn ciidankii SNA baa intay hawlgal u baxeen meel tegey. waa wax aada iyo aada looga xumaado. melihi anigu dawladdu way kharash laadahay. dawladdu waxyaalo badan bay wax ku bixisaa. islaamba waxaa laga sheegay ninka booladaala gabadheeda kama dhali waayo. dawladda federaalka ah ciidankaas way hubayn weyday oo waxbay u weyday. aniga igama dhaadhacayso, ma aqbalayno. ma aha wax suurtagala annagoon dhaqaalahaynin oo waxba gacanteeda aynu ku jirin. ciidamaan tababaray, hubkoodii baan soo jaqabsanay. maanta waxaan u hubayn laanahay kuwa tababarka ku jireed u tegi doonteen kale. kuwaanoo la hubayni way nagu adag tahay in la hubeeyo oo maalin walba ciidan kale hortooda lagu dhiso. mudane madaxweyne, waxaan kaa rabnaa gaadiidkii loo keenay wakaas hal baabuur Jubbaland kaba inay isticmaali. maanta dawladda federaalka waxaan uga joogaa, taliyii xoogguna waa joogaa, madaxweynehina wuu joogaa. war ciidankaas muddadaasaan wax u keenaynaa. waxaan isku soo gurudnaba maanta waan u diyaar garoobaynaa. ciidanka waa la hubaynayaa iyo maye intaad kale celcelisaan Jubbaland dib ha ugu noqdeenoo idinku u tashada. labadaa jawaabood baan ka sugaya dawladda federaalka. بسم الله الرحمن الرحيم. mudane madaxweyne, guddiga ila socda, wafdiga ila socda oo golaha wasiirada ah, xildhibaanada labada aqal iyo xildhibaanada Jubbaland iyo wasiiradooda, guud ahaan dadweynaha halkan jooga iyo ciidamada qalabka sida, waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. madaxweyne, waxaan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo sharafta badan aniga iyo wafdigayga aad noo soo dhaweyseen, wasiiradeeda iyo xildhibaanada sharafta leh aad noo soo dhaweyseen, iyo sida wanaagsan ee reer Jubbaland oo gacmaha furan oo qalbiga furan oo waaltinimada leh aad noo soo dhaweyseen oo farxadda leh. waan idinkaga mahadcelinaynaa. waxaan kaloo aan kaaga mahadcelinayaa madaxweyne, runtii hawsha baahsan oo wanaagsan oo aad magaaladan ka qabatay oo igu horeyso nabadda inaad nabadaysay, oo warbixinadan helayo ay tahay magaaladan in la socon karo, qof walba oo mas-uula oo meeshu rabo mari karo, mas-uuliyiintu inay xafiisyadooda ku yaalaan ay magaalada degan yihiin iyagoo la waardiyeynin. runtii taas waxaan oran karaa waa horumar aan doonayno inaan higsano annagu haddaan nahay dowladdii federaalka. haddaan shacabka reer Kismaayo iyo reer Puntland iyo Jubbaland raalli ahow, hilmaan hadal kuma jiro, iyo mas-uuliyiintaba waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan oo ay gacan siiyaan madaxweynaha Axmed Madoobe sida wanaagsan uu hawsha hufan uu maxaan ku rahdaa maamul goboleedka ama dowlad goboleedkan ugu hayo in gacan aan wada siino. annagana wixii karaan keennaa haddaan nahay dowladdii federaalka ah ka hakarmayna insha allah hadduu ilaah yidhaaho. halkan maanta waxaan ugu imid booqasho aan iraahdo salaan iyo inaan helo warbixinta magaaladan ka jirta iyo gaar ahaan ciidamadan qalabka sida oo hadda kulley warbixintooda aan hayo oo ay tahay inay dhamaysteen tababarkoodii
muddo hal sano iyo bar ah ayna yihiin ciidamo isku dhafan oo u diyaarsan inay dalkooda difaacaan cadowgooda ka difaacaan runtiina aan ognahay inay jirto duruufo adag oo meesha yaalla oo xaqiiqo ah oo aan doonayno inaan daboolno hadduu ilaah yidhaahdo laakiin haddee hawshu ma wada xuma waxaan leeyahay mushaharadiinna waa hesheen 4 bilood iyo 5 bilood haddii ugu dambaysay iyo wixii aad u baahnaydeen hadda waxa weeye inaad howl gashaan oo aad heshaan qalabkii iyo agabkii aad ku howlgal laheedeen si aan uga hortagno cadowga horarka ay ummadda Soomaaliyeed u diiday nabadda iyo horumarka u diiday waxaan aaminsanahay inaad diyaar u tihiin soo maaha diyaar ma tihiin annagu haddaan nahay dowladdii federaalka insha allah hadduu ilaah yidhaahdo waxa idinka haray ama waxa idin dhiman waa soo dhammaystirinahay insha allah inuu ilaahay hadduu ilaah yidhaahdo waxaan aaminsanahay markaad heshaan wixii aad u baahnaydeen qalabkiinnii iyo wixii lidinku tababaray waxaan aaminsanahay inaad howlgalaysaan cadowga Soomaaliyeed oo horumarka u diidayna inaad ka hortagaysaan aad u diyaarsan tihiin soo ma diyaarsanidin ma u diyaarsan tihiin annaguna waxaan ugu ballanaa inaan idin keeno qalabkii iyo hubkii aad u baahnaydeen insha allah Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya allah ha nooleeyo Soomaali isku dhafan jareer iyo jilaac waa lagu jiraa مدن مدحوين هالكان مدحوينها جمهورية فدرالك Soomaaliya iyo waftiga la socdo ay ka mid yihiin taliyaha xoogga wasiirka arrimaha gudaha wasiirro badan xildhibaano iyo senatarro inta dowlad goboleedka Jubbaland saraakiisha saxaafadda kulligiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaa farxad weyniya in mar labaad aan madaxweyne labaad ku soo dhaweynayo mikrofoonkan oo lagaga hadlayo halkan jaamacadda Kismaayo iyo ciidankii isku dhafka ahaa ee ugu horreeyey oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda gaashaandhig mudane madaxweyne sida uu taliyaha xoogga iyo taliyaha qaybta 43 sida uu ahaa heshiiskii in la qaybaha loo dhisayey ay ka hadleen ciidankaan waa ciidan Soomaaliyeed oo isku dhaf ah waxaan u malaynayaa maanta diyaargarowgooda iyo ciidannimadooda hortaada indhaha indhiinay ka muuqataa ciidankani cadow badan baa ku xeeran marka Jubbaland la yidhaahdo waa maanta meelaha ugu culus Soomaaliya ee madaxa maska madaxiisu uu yaallo shabaab madaxoodu deegaankan ugu badan yahay masna madaxa laga dilaa raggii ka dili lahaana waa raggan madaxweyne iyagiina waxaad moodaa waralanimadu inay ku dheeraatay 2005 ilaa hadda inay sacaboolay noqdaan oo kabaha iyo direysku ay ku kor dhamaadaan oo ayna hawl gelin oo maalin magac loo bixiyo
lama naxa iyo idil abaydaa iyo yacni intaasoo magacay maanta ku qaadaan oo maanta aan la odhanayn ciidankii SNA baa intay howlgal u baxeen meel tegey waa wax aada iyo aada looga xumaado melihi anigu dawladdu way kharash laadahay dawladdu waxyaalo badan bay wax ku bixisaa islaamba waxaa laga sheegay ninka bowladaala gabadheeda kama dhali waayo dawladda federaalka ciidankaas way hubayn weyday oo waxbay u weyday aniga igama dhaadhacayso ma aqbalayno ma aha wax suurtagala annagoon dhaqaalahaynin oo waxba gacanteeda aynu ku jirin ciidamaan tababaray hubkoodii baan soo jaqabsanay maanta waxaan u hubayn laanahay kuwa tababarka ku jireed u tegi doontee kale kuwaana la hubayni way nagu adag tahay in la hubeeyo oo maalin walba ciidan kale hortooda lagu dhiso mudan madaxweyne waxaan kaa rabnaa gaadiidkii loo keenay wakaas hal baabuur Jubbaland kaba inay isticmaali maanta dawladda federaalka waxaan uga joogaa taliya xooguna waa joogaa madaxweynehena wuu joogaa war ciidankaas muddadaasaan wax u keenaynaa waxaan isku soo guridnaba maanta waan u diyaar garoobaynaa ciidanka waa la hubaynayaa iyo maye intaad kale celcelisaan Jubbaland dib ha ugu noqdeen oo idinku u tashada labadaa jawaabood baan ka sugaya dawladda federaalka بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينه guddiga ila socda wafdiga ila socda oo golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal iyo xildhibaanada Jubbaland iyo wasiiradooda guud ahaan dadweynaha halkan jooga iyo ciidamada qalabka sida waxaan ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo sharafta badan aad aniga iyo wafdigayga aad noo soo dhaweyseen wasiiradeeda iyo xildhibaanada sharafta leh aad noo soo dhaweyseen iyo sida wanaagsan ee reer Jubbaland oo gacmaha furan oo qalbiga furan oo waaltinimada leh aad noo soo dhaweyseen oo farxadda leh waan kaaga mahadcelinaynaa waxaan kaloo aan kaaga mahadcelinayaa madaxweyne runtii hawsha baahsan oo wanaagsan oo aad magaaladan ka qabatay oo igu horeyso nabadda inaad nabadaysay oo warbixinadan helayo ay tahay magaaladan in la socon karo qof walba oo mas-uula oo meesha roo mari karo mas-uuliyiintu inay xafiisyadooda ku yaalaan in magaalada degan yihiin iyagoo la waardiyey runtii taas waxaan oran karaa waa horumar aan doonayno inaan higsano annagu haddaan nahay dowladdii federaalka haddaan shacabka reer Kismaayo iyo reer Puntland iyo Jubbaland raalli ahow hilmaan hadal kuma jiro iyo mas-uuliyiintaba waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan oo ay gacan siiyaan madaxweynaha Axmed Madoobe sida wanaagsan uu hawsha hufan uu maxaan ku raahdaa maamul goboleedka ama dowlad goboleedkan ugu hayo in gacan aan wada siino annagana wixii karaan keenaa haddaan nahay dowladdii federaalka ka karmen insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo halkan maanta waxaan u imid booqasho aan iraahdo salaan iyo inaan helo warbixinta magaaladan ka jirta iyo gaar ahaan ciidamadan qalabka sida oo hadda kulley warbixintooda aan hayo oo ay tahay inay dhamaysteen tababarkoodii muddo 1 sano iyo bar ah ayna yihiin ciidamo isku dhafan oo u diyaarsan inay dalkooda difaacaan cadowgooda ka difaacaan runtiina aan ognahay inay jirto duruufo adag oo meesha yaalla oo xaqiiqo ah oo aan doonayno inaan daboolno hadduu Ilaahay yiraahdo laakiin haddee hawshu ma wada xuma waxaan leeyahay mushaharadiina waa hesheen 4 bilood iyo 5 bilood hadii ugu dambeysay iyo wixii aad u baahneedeen hadda waxa weeye inaad howl gashaan oo aad heshaan qalabkii iyo agabkii aad ku howlgal lahaydeen si aan uga hortagno cadowga horarka ay ummadda Soomaaliyeed u diiday nabadda iyo horumarka u diiday waxaan aaminsanahay inaad diyaar u tihiin Soomaa diyaar ma tihiin annagu haddaan nahay dowladdii federaalka insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxa idinka haray ama waxa idin dhiman waa soo dhamaystirinaa insha Allah inuu Ilaahay hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan aaminsanahay markaad heshaan wixii aad u baahneedeen qalabkiinii
iyo wixii lidinku tababaray waxaan aaminsanahay inaad howlgalaysaan cadowga Soomaaliyeed oo horumarku u diidayna inaad ka hortagaysaan aad u diyaarsan tihiin soo ma diyaarsanidin muu diyaarsan tihiin annaguna waxaan u ballanaynaa idinkeena qalabkii iyo hubkii aad u baahnaydeen insha Allah Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya Allah ha nooleeyo Soomaali isku dhafan dareer iyo jilaac waa lagu jiraa مدن مدحوينه halkan بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على امر الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وحنا جمهورية فدرالك Soomaaliya iyo waftiga la socdo ay ka mid yihiin taliyaha xoogga wasiirka arrimaha gudaha wasiirada badan xildhibaano iyo senatarro inta dowlad goboleedka Jubbaland saraakiisha saxaafadda kulligood salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaa farxad weyniya in mar labaad aan madaxweyne labaad ku soo dhaweynayo mikrofoonkan oo lagaga hadlayo halkan jaamacadda Kismaayo iyo ciidankii isku dhafka ahaa ee ugu horeeyay oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda gaashaandhigga mudane madaxweyne sida uu taliyaha xoogga iyo taliyaha qaybta 43aad sida uu ahaa heshiiskii in la qaybaha loo dhisayey ay ka hadleen ciidankaan waa ciidan Soomaaliyeed oo isku dhaf ah waxaan u malaynayaa maanta diyaar garowgooda iyo ciidannimadooda hortaada ilaa indhiinay ka muuqataa ciidankani cadow badan baa ku xeeran marka Jubbaland la yidhaahdo waa maanta meelaha ugu culus Soomaaliya ee madaxa maska madaxiisu uu yaallo shabaab madaxoodu deegaankan ugu badan yahay masna madaxa laga dilaa raggii ka dili lahaana waa raggan madaxweyne iyagiina waxaad moodaa waralanimadu inay ku dheeraatay 2005 ilaa hadda inay sacaboolay noqdaan oo kabaha iyo direysku ay ku kor dhamaadaan oo ayna hawl gelin oo maalin magac loo bixiyo lamanaxa iyo idil abaydaa iyo yacni intaasoo magac ay maanta ku qaadaan oo maanta aan la odhanayn ciidankii SNA baa intay howlgal u baxeen meel tegey waa wax aada iyo aada looga xumaado melihi anigu dowladdu way kharash laadahay dowladdu waxyaalo badan bay wax ku bixisaa islaamba waxaa laga sheegay ninka booladaala gabadhayda kama dhali waayo dowladda federaalka ah ciidankaas way hubay u weyday oo waxbay u weyday aniga igama dhaadhacayso ma aqbalayno ma aha wax suurtagala annagoon dhaqaalahaynin oo waxba gacanteeda aynu ku jirin ciidamaan tababaray hubkoodii baan soo jaqabsanay maanta waxaan u hubayn laanahay kuwa tababarka ku jireed u tegi doontee kale kuwaana la hubayn way nagu adag tahay in la hubeeyo oo maalin walba ciidan kale hortooda lagu dhiso
mudan madaxweyne waxaan kaa rabnaa gaadiidkii loo keenay wakaas hal baabuur jubbaland kaba inay isticmaali maanta dowladda federaalka waxaan uga joogaa taliya xooguna waa joogaa madaxweynehena wuu joogaa war ciidankaas muddadaasaan wax u keenaynaa waxaan isku soo guridnaba maanta waan u diyaar garoobeynaa ciidanka waa la hubaynayaa iyo maye intaad kale celcelisaan jubbaland dib ha ugu noqdeen idinku u tashada labadaa jawaabood baan ka sugaya dowladda federaalka بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينه guddiga ila socda wafdiga ila socda oo golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal iyo xildhibaanada Jubbaland iyo wasiiradooda guud ahaan dadweynaha halkan jooga iyo ciidamada qalabka sida waxaan ku salaamay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo sharafta badan aad aniga iyo wafdigayga aad noo soo dhaweyseen wasiiradeeda iyo xildhibaanada sharafta leh aad noo soo dhaweyseen iyo sida wanaagsan ee reer Jubbaland oo gacmaha furan oo qalbiga furan oo waaltinimada leh aad noo soo dhaweyseen oo farxadda leh waan kaaga mahadcelinaynaa waxaan kaloo aan kaaga mahadcelinayaa madaxweyne runtii hawsha baahsan oo wanaagsan oo aad magaaladan ka qabatay oo ugu horeyso nabadda inaad nabadaysay oo warbixinadan helayo ay tahay magaaladan in la socon karo qof walba oo mas'uul ah oo meesha roo mari karo mas'uuliyiintu inay xafiisyadooda ku yaalaan in magaalada degan yihiin iyagoo la waardiyay runtii taas waxaan oran karaa waa horumar aan doonayno inaan higsano annagu haddaan nahay dowladdii federaalka haddaan shacabka reer Kismaayo iyo reer Puntland iyo Jubbaland raalli ahow hilmaan hadal kuma jiro iyo mas'uuliyiintaba waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan oo ay gacan siiyaan madaxweynaha Axmed Madoobe sida wanaagsan uu hawsha hufan uu maxaan ku raahdaa maamul goboleedka ama dowlad goboleedkan ugu hayo in gacan aan wada siino annagana wixii karaan keenaa haddaan nahay dowladdii federaalka ka karmen insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo halkan maanta waxaan u imid booqasho aan iraahdo salaan iyo inaan helo warbixinta magaaladan ka jirta iyo gaar ahaan ciidamadan qalabka sida oo hadda kulli warbixintooda aan hayo oo ay tahay inay dhamaysteen tababarkoodii muddo hal sano iyo bar ah ayna yihiin ciidamo isku dhafan oo u diyaarsan inay dalkooda difaacaan cadowgooda ka difaacaan runtiina aan ognahay inay jirto duruufo adag oo meesha yaalla oo xaqiiqo ah oo aan doonayno inaan daboolno hadduu Ilaahay yiraahdo laakiin haddee hawshu ma wada xuma waxaan leeyahay mushaharadiina waa hesheen 4 bilood iyo 5 bilood hadda ugu dambeysay iyo wixii aad u baahneedeen hadda waxa weeye inaad howl gashaan oo aad heshaan qalabkii iyo agabkii aad ku howlgal lahaydeen si aan uga hortagno cadowga horarka ay ummadda Soomaaliyeed u diiday nabadda iyo horumarka u diiday waxaan aaminsanahay inaad diyaar u tihiin Soomaa diyaar ma tihiin annagu haddaan nahay dowladdii federaalka insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxa idinka haray ama waxa idin dhiman waa soo dhamaystirinaa insha Allah inuu Ilaahay hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan aaminsanahay markaad heshaan wixii aad u baahneedeen qalabkiinii iyo wixii lidinku tababaray waxaan aaminsanahay inaad howlgalaysaan cadowga Soomaaliyeed oo horumarka u diidayna inaad ka hortagaysaan aad u diyaarsan tihiin soo ma diyaarsanidin ma u diyaarsan tihiin annaguna waxaan ugu ballanaa inaan idin keeno qalabkii iyo hubkii aad u baahneedeen insha Allah Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya Allah ha nooleeyo
Somali isku dhafan jareer iyo jileec waa lagu jiraa mudane madaxweyne halkan kuma soo koobi karo dhibaatada uu soo maray ciidankan oo muddo dheer. بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على امر الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وحنا جمهورية فدرالك Soomaaliya iyo waftiga la socdo ay ka mid yihiin taliyaha xoogga wasiirka arrimaha gudaha wasiirada badan xildhibaano iyo senatarro inta dowlad goboleedka Jubbaland saraakiisha saxaafadda kulligood salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waxaa farxad weyniya in mar labaad aan madaxweyne labaad ku soo dhaweynayo mikrofoonkan oo lagaga hadlayo halkan jaamacadda Kismaayo iyo ciidankii isku dhafka ahaa ee ugu horreeyey oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda gaashaandhigga. mudane madaxweyne sida uu taliyaha xoogga iyo taliyaha qaybta 43 sida uu ahaa heshiiskii in la qaybaha loo dhiseeyey ay ka hadleen ciidankan oo ciidan Soomaaliyeed oo isku dhaf ah. waxaan u malaynayaa maanta diyaar garowgooda iyo ciidannimadooda hortaada indhaha indhiinay ka muuqataa. ciidankani cadow badan baa ku xeeran marka Jubbaland la yidhaahdo waa maanta meelaha ugu culus Soomaaliya ee madaxa maska madaxiisu uu yaallo. shabaab madaxoodu deegaankan ugu badan yahay masna madaxa laga dilaa raggii ka dili lahaana waa raggan. madaxweyne iyagiina waxaad moodaa waralanimadu inay ku dheeraatay 2005 ilaa hadda inay sacaboonay noqdaan oo kabaha iyo direysku ay ku kor dhamaadaan oo ayna hawl gelin oo maalinba magac loo bixiyo lamanaxa iyo idil abaydaa iyo yacni intaasoo magac ay maanta ku qaadaan oo maanta aan la odhanayn ciidankii SNA baa intay howlgal u baxeen meel tegey waa wax aada iyo aada looga xumaado. melihi anigu dowladdu way kharash laadahay dowladdu waxyaalo badan bay wax ku bixisaa. islaamba waxaa laga sheegay ninka dowladaana gabadheeda kama dhali waayo. dowladda federaalka ah ciidankaas way hubayn weyday oo waxbay u weyday aniga igama dhaadhacayso ma aqbalayno. ma aha wax suurtagala annagoon dhaqaalahaynin oo waxba gacanteeda aynu ku jirin ciidamaan tababaray hubkoodii baan soo jaqabsanay. maanta waxaan u hubayn laanahay kuwa tababarka ku jireed u tegi doontae kale kuwaanaan la hubayni way nagu adag tahay in la hubeeyo oo maalin walba ciidan kale hortooda lagu dhiso. mudane madaxweyne waxaan kaa rabnaa gaadiidkii loo keenay wakaas hal baabuur Jubbaland kaba inay isticmaali. maanta dowladda federaalka waxaan uga joogaa taliyii xoogguna waa joogaa madaxweynehina wuu joogaa. war ciidankaas muddadaasaan wax u keenaynaa waxaan isku soo guridnaba maanta waan u diyaar garoobeynaa ciidanka waa la hubaynayaa iyo maye intaad kale celcelisaan Jubbaland dib ha ugu noqdeenoo idinku u tashada. labadaa jawaabood baan ka sugaya dowladda federaalka. بسم الله الرحمن الرحيم. مدن مدحوينه guddiga ila socda wafdiga ila socda oo golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal iyo xildhibaanada Jubbaland iyo wasiiradooda guud ahaan dadweynaha halkan jooga iyo ciidamada qalabka sida waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo sharafta badan aad aniga iyo
wafdigay aad noo soo dhaweyseen wasiiradeeda iyo xildhibaanada sharafta leh aad noo soo dhaweyseen iyo sida wanaagsan ee reer Jubbaland oo gacmaha furan oo qalbiga furan oo waaltinimada leh aad noo soo dhaweyseen oo farxadda leh waan idinkaga mahadcelinaynaa waxaan kaloo aan kaaga mahadcelinayaa madaxweyne runtii hawsha baahsan oo wanaagsan oo aad magaaladan ka qabatay oo ugu horeyso nabadda inaad nabadaysay oo warbixinadan helayo ay tahay magaaladan in la socon karo qof walba mas'uul ah meesha roo mari karo mas'uuliyiintu inay xafiisyadooda ku yaalaan in magaalada degan yihiin iyagoo la waardiyay runtii taas waxaan oran karaa waa horumar aan doonayno inaan higsano annagu haddaan nahay dowladdii federaalka haddaan shacabka reer Kismaayo iyo reer Puntland iyo Jubbaland raalli ahow hilmaan hadal kuma jiro iyo mas'uuliyiintaba waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan oo ay gacan siiyaan madaxweynaha Axmed Madoobe sida wanaagsan uu hawsha hufan uu maxaan ku raahdaa maamul goboleedka ama dowlad goboleedkan ugu hayo in gacan aan wada siino annagana wixii karaan keenaa haddaan nahay dowladdii federaalka ka hakarmayna insha Allah hadduu Ilaahay yidhaaho halkan maanta waxaan u imid booqasho aan iraahdo salaan iyo inaan helo warbixinta magaaladan ka jirta iyo gaar ahaan ciidamadan qalabka sida oo hadda kulley warbixintoodan hayo oo ay tahay inay dhamaysteen tababarkoodii muddo 1 sano iyo bar ah ayna yihiin ciidamo isku dhafan oo u diyaarsan inay dalkooda difaacaan cadowgooda ka difaacaan runtiina aan ognahay inay jirto duruufo adag oo meesha yaalla oo xaqiiqo ah oo aan doonayno inaan daboolno hadduu Ilaahay yiraahdo laakiin haddee hawshu ma wada xuma waxaan leeyahay mushaharadiina waa hesheen 4 bilood iyo 5 bilood haddii ugu dambeysay iyo wixii aad u baahneedeen hadda waxa weeye inaad howl gashaan oo aad heshaan qalabkii iyo agabkii aad ku howlgal lahaydeen si aan uga hortagno cadowga horarka ay ummadda Soomaaliyeed u diiday nabadda iyo horumarka u diiday waxaan aaminsanahay inaad diyaar u tihiin soo maaha diyaar ma tihiin annagu haddaan nahay dowladdii federaalka insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxa idinka haray ama waxa idin dhiman waa soo dhamaystirnaa insha Allah inuu Ilaahay hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan aaminsanahay markaad heshaan wixii aad u baahneedeen qalabkiinii iyo wixii idinku tababaray waxaan aaminsanahay inaad howlgalaysaan cadowga Soomaaliyeed oo horumarka u diidayna inaad ka hortagaysaan aad u diyaarsan tihiin soo ma diyaarsanidin ma diyaarsan tihiin annaga waxaan u ballanaa inaan idin keeno qalabkii iyo hubkii aad u baahneedeen insha Allah Soomaaliya ha noolaato Soomaali isku dhafan jareer iyo jilaac waa lagu jiraa
مدن مدحوينه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا نستعين على امر الله والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وحنا جمهورية فدرالك Soomaaliya iyo waftiga la socdo ay ka mid yihiin taliyaha xoogga wasiirka arrimaha gudaha wasiirro badan xildhibaano iyo senatarro inta dowlad goboleedka Jubbaland saraakiisha saxaafadda kulligiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waxaa farxad weyniya in mar labaad aan madaxweyne labaad ku soo dhaweynayo mikrofoonkan oo lagaga hadlayo halkan jaamacadda Kismaayo iyo ciidankii isku dhafka ahaa ee ugu horreeyey oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda gaashaandhigga. mudane madaxweyne sida uu taliyaha xoogga iyo taliyaha qaybta 43 sida uu ahaa heshiiskii in la qaybaha loo dhisayey ay ka hadleen ciidankan waa ciidan Soomaaliyeed oo isku dhaf ah. waxaan u malaynayaa maanta diyaar garowgooda iyo ciidannimadooda hortaada ilaa indhiinay ka muuqata. ciidankani cadow badan baa ku xeeran marka Jubbaland la yidhaahdo waa maanta meelaha ugu culus Soomaaliya ee madaxa maska madaxiisu uu yaallo. shabaab madaxoodu deegaankan ugu badan yahay masna madaxa laga dilaa raggii ka dili lahaana waa raggan. madaxweyne iyagiina waxaad moodaa waralanimadu inay ku dheeraatay 2005 ilaa hadda inay sacaboolay noqdaan oo kabaha iyo direysku ay ku kor dhamaadaan oo ayna hawl gelin oo maalin magac loo bixiyo lamanaxa iyo idil abaydaa iyo yacni intaasoo magac ay maanta ku qaadaan oo maanta aan la odhanayn ciidankii SNA baa intay howlgal u baxeen meel tegey waa wax aada iyo aada looga xumaado. melihi anigu dowladdu way kharash leedahay dowladdu waxyaalo badan bay wax ku bixisaa. islaamba waxaa laga sheegay ninka bowladaala gabadheyda kama dhali waayo. dowladda federaalka ciidankaas way hubayn weyday oo waxbay u weyday aniga igama dhaadhacayso ma aqbalayno. ma aha wax suurtagala annagoon dhaqaalahaynin oo waxba gacanteeda aynu ku jirin ciidamaan tababaray hubkoodii baan soo jaqabsanay. maanta waxaan u hubayn laanahay kuwa tababarka ku jireed u tegi doonteen kale kuwaana la hubayni way nagu adag tahay in la hubeeyo oo maalin walba ciidan kale hortooda lagu dhiso. mudane madaxweyne waxaan kaa rabnaa gaadiidkii loo keenay wakaas hal baabuur Jubbaland kaba inay isticmaali. maanta dowladda federaalka waxaan uga joogaa taliya xoogguna waa joogaa madaxweynehina wuu joogaa. war ciidankaas muddadaasaan wax u keenaynaa waxaan isku soo guridnaba maanta waan u diyaar garoobaynaa ciidanka waa la hubaynayaa iyo maye intaad kale celcelisaan Jubbaland dib ha ugu noqdeen oo idinku u tashada. labadaa jawaabood baan ka sugaya dowladda federaalka. بسم الله الرحمن الرحيم. مدن مدحوينه guddiga ila socda wafdiga ila socda oo golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal iyo xildhibaanada Jubbaland iyo wasiiradooda guud ahaan dadweynaha halkan jooga iyo ciidamada qalabka sida waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. madaxweyne waxaan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo sharafta badan aad aniga iyo wafdigayga aad noo soo dhaweyseen wasiiradeeda iyo xildhibaanada sharafta leh aad noo soo dhaweyseen iyo sida wanaagsan ee reer Jubbaland oo gacmaha furan oo qalbiga furan oo waaltinimada leh aad noo soo dhaweyseen oo farxadda leh waan kaaga mahadcelinaynaa. waxaan kaloo aan kaaga mahadcelinayaa madaxweyne runtii hawsha baahsan oo wanaagsan oo aad magaaladan ka qabatay oo ugu horeyso nabadda inaad nabadaysay oo warbixinadan helayo ay tahay magaaladan in la socon karo qof walba oo mas'uul ah oo meesha roo mari karo mas'uuliyiintu inay xafiisyadooda ku yaalaan in magaalada degan yihiin iyagoo la waardiyay. runtii taas waxaan oran karaa waa horumar aan doonayno inaan higsano annagu haddaan nahay dowladdii federaalka haddaan shacabka reer Kismaayo iyo reer Puntland iyo Jubbaland raalli ahow hilmaan hadal kuma jiro iyo mas-uuliyiintaba waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan
oo ay gacan siiyaan madaxweynaha Axmed Madoobe sida wanaagsan uu hawsha hufan uu maxaan ku raahdaa maamul goboleedka ama dowlad goboleedkan ugu hayo in gacan aan wada siino annagana wixii karaan keenaa haddaan nahay dowladii federaalka ka hakarmayna insha allah hadduu ilaahi yidhaaho halkan maanta waxaan u imid booqasho aan iraahdo salaan iyo inaan helo warbixinta magaaladan ka jirta iyo gaar ahaan ciidamadan qalabka sida oo hadda kulley warbixintooda aan hayo oo ay tahay inay dhamaysteen tababarkoodii muddo 1 sano iyo bar ah ayna yihiin ciidamo isku dhafan oo u diyaarsan inay dalkooda difaacaan cadowgooda ka difaacaan runtiina aan ognahay inay jirto duruufo adag oo meesha yaalla oo xaqiiqo ah oo aan doonayno inaan daboolno hadduu ilaahi yidhaahdo laakiin haddee hawshu ma wada xuma waxaan leeyahay mushaharadiina waa hesheen 4 bilood iyo 5 bilood haddii ugu dambaysay iyo wixii aad u baahneedeen hadda waxa weeye inaad howl gashaan oo aad heshaan qalabkii iyo agabkii aad ku howlgal laheedeen si aan uga hortagno cadowga horarka ay ummadda Soomaaliyeed u diiday nabadda iyo horumarka u diiday waxaan aaminsanahay inaad diyaar u tihiin Soomaa diyaar ma tihiin annagu haddaan nahay dowladii federaalka insha Allah hadduu ilaahi yiraahdo waxa idinka haray ama waxa idin dhiman waa soo dhamaystirinaa insha Allah inuu ilaahi hadduu ilaahi yiraahdo waxaan aaminsanahay markaad heshaan wixii aad u baahneedeen qalabkiinii iyo wixii lidinku tababaray waxaan aaminsanahay inaad howlgalaysaan cadowga Soomaaliyeed oo horumarku u diidayna inaad ka hortagaysaan aad u diyaarsan tihiin soo ma diyaarsanidin ma u diyaarsan tihiin annaguna waxaan ugu ballanaa inaan idin keeno qalabkii iyo hubkii aad u baahneedeen insha Allah Soomaaliya ha noolaato Soomaali isku dhafan jareer iyo jilaac waa lagu jiraa